الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي المهد سبحانه وتعالى. إلهي قاعد يود كيس كوس عليي يسون بالقوة. يعني المهد نقينا وانهم بلياننا قدوميها عبد الكريم محمد إيد. وحالنا هاي سومالنا وحب هذا هيرو. وعن هنا دب بلا هيرو بين هنا. وأنا هيرو جيو هري ونور النقدي. وكنت صالح في عنو ونقولنا إن فاك وحي شركتنا أي مهمة دي واحد سيف عن أول شيء على نصير أو شيء وسيف فهم أنت كشقيسة يسلو ودلية هي كشقي أنا واحد دستور تاعي يعني النظام كان إنه قادنا فري ماركت يعني فائدته كلها أي متعي أنا واحد كونستيوشن حقوقي يعني إنه هاي إنه قادنا سوق فرن wax monopoly la yiraahdo inaga mamnuuc yahay taas waa tartan bay keenaysaa waa taa maanta Telesom Africa oo dhan ay kor uga soo baxday waxaan leenahay Somaliland waxad iyagu waxay ku caan baxday inay breach garayso constitution inta jeer constitution ka la jabiyay ciidda uu ka badan yahay waxa kamid ah monopoly-ga la xiray intaasoo shirkado jirto monopoly loo xiro kala duwan arrimo badan oo kala kaadkaara waxaan leenahay hala joojiyo monopoly free market ka hala furo 12 cable ayaa maraa Djibouti oo badda ah inagana waa ogtiinoo mid qurmo mar waxay taasi ka mid tahay yani xakamaadda la xakamay free market ka tartanka yalla maanta waa ogtiin wax Allah waxaan dirno xitaa lacagtan dirna Djibouti marta koolka soo marna Djibouti qabta security-ga xitaa khatar ku jirta nabadgelyada iyo sirteena ayaa xitaa khatar ku jirta waxaasna waxa loo keenay nabadtiisa meel ay nabadtiisan ay timaado ee xasho horumar ma yimaado waxa leenahay magaalada Saciid oo daano qoran baarlamaanka uma akhrin wali legal yihiin uma arkay laakiin way fadhiyaan laakiin ka waxa ka qabteen waa kala meel bada dhiganaay monopoly-ga ha jabiyeen monopoly-ga ha jabiyeen baa leenahay wada hadalay Soomaaliya la soo celiya ayaan ku heshiinay wax dambe Soomaaliland laga sheegay waxaan afnana aan joojinaa ayaan ku heshiinay dadku waxay ka dhaxeeyaan haddaan aydun desin jawiga ku wada hadashaan oo isku aamintaan oo ku garantaan maxaa tan col wada fadhiyaan noqonaysa saaxiibnimada ka horeysa iyo conference building ka horeysa gorgorta ka horeysa airport-ka ka degnay airport waxa joogay ninka safiirka Soomaaliya ah ninka safiirka Soomaaliya waa nin aan CD ah waa nin xididnahay waa nin isnaqaano dadkiisu soo dhaweeyay halkii laga qaadanayo shandadaha ayaan ku qoranay isla ka taswiray inaga sharci inoo yaala sidii nabadka soorka cunsuriyadaha loo madowga cadaanku isla taagin midna yiri wada weyn isla taagin waxa salaamin la meel ku yaala horta ma jiro moogta Soomaaliya ninkaas waxa weeye caruurteena aan dawladeena ogeyn ee leeyo ku balanbalisa halka ku wasiirla ku ambassador la waa ninka la weydiiyo in Soomaaliya si wax loo siiyo dibna loogu soo celiyo anigoo la jooga ayaa afar la soo hadleen ka raagtay warqadii kaasi gudoomiyihii bay la fadhiyay way igu ooyeen adeer noogu dhaqsadhe ninka aan dadkeena leeleelay ee dawlad xumaanta iyo dhaqaale xumaanta iyo qabyaaladda iyo musuqmaasuqa runta inoo noqday ka cararay ee naftoodii inta wax barteen ninka gacanta ku hayay ilaahay wuxuu isla taswiray nin Soomaaliya waxa weey waxaas waxay tusisaa aqoon dahaanteena tusisaa aqoon dahaanayo inay nahay dad aan waxba baran oo dawladnimo garaneen oo dawladnimo si loo isticmaali garaneen oo sharci garaneen way noqonay waxa weeye guul baan soo helnay cabta waxa loo sameeyay Soomaaliya dawlad baa ka dhalatay la ictiraafay dawladda la ictiraafay 2012 ka waa la hadalay waxaan siiyay maqaam fiican baa laga siiyay heshiis baan la galay
2013 heshiiskan la galay baa arsaaqadii la bixinayay la inagu qaybiyey